maanta waxaa lagu jiraa sanad guuradii afartanaad ee maalintii af Soomaaliga la qoray barnaamijkeena oo dhan gabi ahaantiisana wuxuu ku saabsanaan doonaa dabaaldegiisa taariikhdiisii hirgelintiisii ilaa iyo hadda meesha uu marayo markaa maalin wanaagsan iyo dhegeysi wanaagsan maanta waa sanad guuradii afartanaad ee ka soo wareegtay maalintii afarta Soomaaliga la qoray waxaan malaynayaa aniga iyo dhegeystayaal fara badan oo ku jira in aanu xasuusano maalintii af Soomaaliga qoritaankiisii oo lalaha iyo siday ahayd qiirada ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxay maalin historiga marraba qaybtaas inaan marka aniga aan galo waxaa ila jooga nin aad wada garanaysaan Cabdiraxmaan Aadan oo waxbarashada aad iyo aad ah nin wasaaradda waxbarashada xiriiriye ka ah iyo jaaliyadda Soomaaliyeed isla markaana nooga sheekayn doona maanta bal taariikhdii farta Soomaaliga ahayd Cabdiraxmaan kugu soo dhaweeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo fursadda aad siisay in aan maantay halkan kala hadlo ummadda Soomaaliyeed ee iyaguna maqlaya ama laga yaabo inay maqal iyo muuqaalka ku arkaan mustaqbalkana waxaan leeyahay sanad guuro afartanaad ee qorista Soomaaliga oo wanaagsan Cabdiraxmaan maalintii la qoray iyo hadda waxaa ka soo wareegtay 40 sanadood waxaan moodaa inuu wali survive garoobay marka loo eego xaaladihii kala duwanaa ee soo maray khaasatan 20 sano u dambeeyay intaan marka taa ogalin hadda doontana igu dar sheekada laakiin background iga sii af Soomaaliga iyo qoritaankiisii waa iyo waqtiyada kala duwanaa oo soo maray masalan kulli Soomaaligu wuxuu soo maray tan iyo qarnigii 19aad horaantiisii doorar kala duwan waxaa jira fara kala duwan ee aqoon-yahano Soomaaliyeed ay isla soo qaadeen oo qof oo magacyo iyagu kala lahaa kuwooda ugu waaweyn la xasuusto waxaa ka mid ahaa fartii Ismaaliyeed la oran jiray waxaa ka mid ahaa nin kale oo Soomaaliya oo keenay in Carabi ay noqdaan xuruufta lagu qorayo laakiin fartu ay noqoto Soomaali waxaa kaloo jiray xuruufta kale oo Laatiinka ahayd ama hooyada luqadaha la yiraahdo iyo eray bixin kale oo ahayd midii ka dare iyo aqoon-yahankii kale oo isaguna maaragtay ku abtirsanayay magaalada Boor ee 19aad horaantiisii doodi way wada socotay ilaa iyo dawladdii ka horeysay dawladdii Maxamed Siyaad Barre ee rayidka ahaydba afku waa yaala laakiin wuxuu u baahnaa wixii hirgelin lahaa iyo sidii loo kala dooran lahaa marka ma ahayn mid la socday kacaanka laakiin waxaad leedahay macnaha waa mid maalinba maalin ka dambaysa soo yeeranay wajiyo kala duwan ama dadaalku waa dadaal socday oo hore u jiray dadaalku wuxuu ahaa dadaal socday laakiin dhab ahaantii sidii loo kala qaadanayay oo ama loo kala xulanayay maaragtay qormada farta lagu qorayo inay Carabi tahay oo askunkeena aan ka soo jeedno islaam uu yahay inay tahay maxaan ku radaa xuruufo kala duwan oo ka imaanayay ama midii ka dare ama midii Boorama ama midii Carabiga ama midii Ismaaliyeed ama mid kale oo Ethiopiana intaas ayay ahayd sidii loo kala dooranayay taasna waxaa run ahaantii aan oran karnaa waxaa farta ka soo jiray ama ku soo guuleystay maamulkii Soomaaliya ka dhashay 69kii 21 Oktoobar oo 3 sano gudahood markuu maamulka hayay ku dhawaaqay 21 Oktoobar 1972 in la qaato farta Laatiinka oo lagu qoro maalin taariikh aad iyo aad loo maaragtay runtii loo wada xasuustay Cabdiraxmaan kolley aniga iyo generationkaygu waxaan ahay raggii sanadkaas dib loo dhigay waxaan maraynaa sanadkii gobolada la aaday ayay ahayd maxaa ka duwanaa maxaa ka xasuutaa waxaan ka xasuusan karaa inteena taa aadin waa 74 waa sanadkii ololaha horumarinta reer miyiga inteena taa gaarin waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxay soo jirtay ilaa iyo 20 qarni 20ka qarni 40 sano oo kamid ah ayaa afkeedu qoran yahay oo uu qoraal galay marka afkaas 19 qarni iyo 60 sanadood aan la qorin oo dhiman waayay waxa isweydiin leh afkaas wuxuu ku noolaa صح sidaad ogsoon tahay haddaynu Soomaali nahay waxaana la yiraahdaa waa mujtamacii hadlayay oo wuxuu oralka ahaa aan ku bilaabo bidda ugu horeysa ee afku uu la dhiman waayay waxay ahayd suugaanta Soomaaliyeed ee hodanka ah ee maqaaliga oo
jiilba uu jiilka ka dambeeya u dhiibayay hadday noqon lahayd heesihii hadday noqon lahayd gabayadii hadday noqon lahayd baraamurkii hadday noqon lahayd guurowgii ama shiribkii horta sirta qarsoon ee afkaanu isagoon 19 qarni la qorin uu la dhiman waayey uuna moodo inuu ku hodansan yahay afafka kale ayaa midaasa tada labaadna waxaynu nahay qaranka geeska Afrika ah oo Afrikaan ah oo iyagu afkuna uu yahay Soomaali dalkuna uu yahay Soomaali dadkuna uu yahay Soomaali oo iyagu afkooda u gooliya leh taasna waxay ahayd mid maaragtay runtii diila leh waxaan soo laabanayaa waxaa tidhi sanadkii ka khasaaray markii lagu dhawaaqay 22 October waxaa maqaal igu ah in maalintaas dabaaldega la sameeyay October 22keedii 1972 dabaaldegii October lagu sameeyay diyaarada duulayay ay soo daadiyeen xaashiyahaas waxay ku kala qornaayeen faraha kala duwan midda Ismaaniyada midda xuruufta alfabeetka midii maaragtay laakiinka aha dadkii waa marka waxaa la rabay si bal fikriya dadkii waalqadii inta la qaaday in la akhriyay waxaa marka halkaa ka soo baxay iyadoo dadku u janjeeray in carabi lagu qoro oo farta midigta laga soo bilaabo oo bidixda u socoto ayaa haddana waxaa dadkii ay warqadihii la qaadi karay waxay noqdeen kuwii laatiinka ku qornaa in la qaado marka taas oo dadku u bateen waxaa kaloo marka 74 ololihii horumarinta reer miyiga ayaa loo bixiyay marka taan dib ugu noqday idoskan macnaha waxaad oran kartaa referendum oo kala ma waa wax aan oran karno yani dhinacyo dad wadaniyiin ah oo iyagu oo ay rabay ka ordayay in aan wax galbeedka aan influence ku yeelan waxaa kaloo meesha ku jiray kharaj baa jira haddii lagu qori lahaa farta carabiga ah waxay ahaan lahayd qalabkii wax lagu daabacaya in la keeno haddii fartii Ismaaniyada oo aan faraq kasto aan laatiin ahayn khalad ayaa daba yaalay markii la daneeyo siyaabo fara badan la xeeliyo ayaa dadku waxay noqotay inuu u khalad yar yahay una fudud yahay laatiinka ololihii baa tilmaantay marka ani fakti kharashka okay sax sababta waxa isla markiiba waxa saaciday uu la bulaalay afkiiba maxaan ku yiraahdaa waxaa diyaar ahaa qalabkii laatiinka makiinadii ku shaqeynaya oo dhan marka caadi ayay ahayd in la qaado in manhajkii ama curriculumkii la diyaariyo 74 waa sanadkii la magac baxay ololihii horumarinta reer miyiga ardaydii Soomaaliya ee ku jiray dugsiyada sare iyo maaragtay ayaa waxaa loo kala diray inay u tagaan tuulooyinka gobolada iyo degmooyinka run ahaantii waxay ahayd mas'ala aad iyo aad u cajaa'ib ah sababtoo ah qof ku dhashay Muqdisho oo weligii xamar ka dhex bixin baa waxaa la geynayaa Boosaaso salkeeda marka wuxuu soo arkay ummad kale oo wax akhrinaya markaasaa rin la siinaya nimaan weliga rin yeelan la leeyahay ridan baa waa taqaana waxa hawl dugsiga oo kale wax fariisin iyo waxa la bixin jiray reer miyiga marka wax loo akhriyo wuxuu ahaa sanad taariikh waxaan ku guda jirnaa maanta dabaaldegii sanad guuradii 4aad ee qorista farta Soomaaliga cabdiraxmaan aadan oo stuudiyaha marti noogu ah aad wada garanaysaan xiriiryaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minneapolis Public Schools ayaa nala jooga waagaana ka mid ahaa runtii raggii marka ay goobjooga ahaa wax laga weydiin karo waxa la arrin hadday dhacdo dadka goobjoogayaasha wax laga weydiin karaa caruurtii goobjooga title-ka waa isku haysanaa laakiin waa iska sii daynaya cabdiraxmaan bal ka waran sidee qiiradu ahayd intaan macnaha sanadka iskuulaadka la baajiyey waxaan ka hadlayaa sanadkii ololuhu la galay in gobolada la aado qiiradii iyo ka waran isdhexgalkii dadka iyo sidee dadku dareemayeen xaqiiqadii baashio waxa weeye kollay kuray baan ahaa dhowr iyo 10 jir dhowr iyo 10 jirkana waxa weeye wuxuu xusuusan karaa waxyaabihii meesha dhacayay oo sida ay wax u socdeen waayo arday baan ahaa marka dugsiga dhiganayay marka waxa uu xogta uu ogaan karo qofka ardayga ahi iyo marka la barbar dhigo qof 30 jir oo kale waa xog aad u kala fog marka laakiin waxa ku leeyahay raqba waa ku rageeda oo garashadayda intii aan ogahay iyo intii aan akhriyay ama intii aan dad kale oo Soomaaliya iga aqoon badan oo meeshan iga haboonaan lahaa hataa inay joogaan ay garan karaan eego waxa iga soo baxaya ma aragtay
dhab ahaantii waddan aan af lahayn oo afkiisa qornayn oo afkiisanu hadda uu qoran yahay waxba sanadka 74 waaba sanadkii madaxweynihii Soomaaliya Allah u naxariistee uu ahaa madaxweynihii oo maartay oo Youth Africa waa sanadkii Uganda iyo Tanzania markii gabaygii baan xasuustaa intay isku dhaceen la dhexdhexaadiyay oo abaalka ugu weyn oo Uganda ay hayso kamid ahaa aan mawduuca u soo laabtay ololahan horumarinta waxaa loogu talagalay waqtigaasi waxaa dadka Soomaaliyeed lagu qiyaasay inay wax qori kareen 5%, laakiin markii ololihii la tagay oo wadanka arday walba aan loo eegin meesha uu ka yimid laakiin meeshii uu nasiibku u noqday lagu qoray waxaa batay isdhexgalkii waxaad arkaysaa nin aan weligii ri arag oo xeeb ag joogay ama weligii aan maaragtay tuulo arkin reerka uu u tagay oo wax u dhigaya markuu soo tagay in la dhaho dee saxayba qofka la siiyay rida qaado oo marka ninkii mushkilad ku noqotay ridii haddana ay ahayd waa great experience oo Soomaalidu abaal marka loo galo waa yani alaaba waxa weeye abaalkoodii waxay ku tusayaan inay ogaadaan appreciation waxay ahayd waa sanadkii loo diyaar garoobayay in la qoro manhajkii lagu qoro dugsiyada hoose waayo markii lagu dhawaaqay wixii waxa la rabaa waxaa loo yeeray macallimiintii hadday ahaan lahaayeen kuwii dalka wax ku soo bartay ama kuwii la foolay ama dugsiyada wax ka dhigayay marka ayaa waxaa la raadiyay in la sameeyo technical terms waxa la yiraahdo ama afkeena Soomaaliga lagu dhaho eray bixintii hadduu noqon lahaa eray bixinta luqad ahaaneed hadduu noqon lahaa midii xisaabta hadduu noqon lahaa physicska hadduu noqon lahaa chemistryga hadduu noqon lahaa science-ka ama biology-ga in la raadiyo waayo afku iyo buugaagtii markaa wax lagu qorayay oo markaa iyaguna u baahan muqarrarkii in la bedelo inta taas ay socotay oo dhan waqtigii ardayda ka dhumi lahaa ayaa waxa loogu bedelay 75% in ay awoodeen inay qori karaan akhriiri karaan afka Soomaaliga markii laga soo laabtay 74 ololihii horumarinta reebiga taasina waa guul aad iyo aad lixaad u leh oo run ahaantii waqtigaas waxaan ka xasuustaa marka erayada iigu yaabka badnaa wuxuu ahaa waa ilaah mahadiye ii keena aan bartay afka Soomaaliyeed a e i o u iyo shaqalkii dheeraa oo weheliyay effecti tagitaan aad tagteen ama la aaday far Soomaaliga dadkii la baro oo loo baxay gobolada kala duwan ee Soomaaliya waxay xasuusisaa waagan anigu ahaa waxaan ku jiray groupkii gurmadka and effecti aan jeclaan lahaa nin maalinta ka qayb galana saasoo kale inaan mar casimo oo waxyaalaha runtii kordhiya laba shay mar waxay ku barayaan dad isdhexgalkii dadka ama dalkaaga baranaysaa marka labaadna waxay maaragtay kordhisaa runtii aqoonta aad u leedahay maaragtay shakhsiyan dalkaaga marka waxaan inkastoo aan soo yareynayo sheekada maalin kale aan ka hadli doono waxaan tegay jubbada dhexe ku aaday oo aan marnaba tegi lahayn haddii aan gurmadahaan u hadli lahayn waxaa laysiiyey waa xasuustaa xaafadaas aan markaa ama ereydaas aan macalinka ah waxaa laysiiyey 1 year oo maaragtay halkaa dhibic madaxa ku leh wankii markaa anagoo guruuba waa taqaan marra yaqshiid waxba ka garan maayaan maaragtay xoolaas waxaan u bixinay tabeeba marka waa chapter marka waxaan xasuusan waxaan ka garan karaa meeshaas ninkii la geeyey ama boosaaso ama kaalkacay la geeyey ama kii kaalkacay joogo la geeyey southka la keenay sidii macnaha waxa ay u samayn karto runtii iyo wadaninimada erey bixinta kulley waxaan ka xasuustaa qaybtii iskoolaadka science-ka oo kale xawaaraha oo kale maxaad ka xasuusan kartaa ama erey bixinta kugu mucjisada badnaa maxaa kamid ahaa la yaabtay sida macnaha anigu erey bixinta dadka Soomaaliyeed ee sameeyay waxaan oran karaa waa dad afka iyo aqoonta uu ku dhamaa waxyaabaha marka ugu cajiibka ah wuxuu ahaa anigu markaa waxaan ahaa dadkii markaa xiiseynayay oo qofku ka badiyo inuu uu qori karo ama uu ka fahmo badan yahay ilaa waxaan hore u naqaanay intaan Soomaaliga la qorin laba luqadood baan qorina jiray kuna hadli karay mid waxay ahayd dugsiga Carabiga oo dugsi Quraanka lagu soo baray mid Ingiriisiga waa midkii aan markaas maaragtay walaalahay oo iga weynaaba markii ay iskuulka aadaan buugaagtooda qaali jiray marka waa iska akhrin jiray marka bawsi adoon iskuul tagin baa wax walba aad baranaysa waayo waxaad ka baranaysaa kuwa kale waxaa leedahay goormaad gaari doontaa waxaan uu walaalkaa gaaray marka ereyada ugu cajiibsan erey bixinta wuxuu ahaa Soomaaliya waqtigaa waa waqtiga la sameynayay warshadihii sameynayay juuska oo kala duwan sidii warshada Etop ama warshadii tabaqay sigaarka oo inta badan ajnabi ay gacanta ku hayeen ereyga iigu yaabadnaa marka wuxuu ahaa
maaragtay dhinaca la eego erey bixinta wuxuu ereygii industrializationkii oo la yiri tolaynta warshadaha macnaha Soomaalidu waxay taqaanay tol waxa u naqaanay annagu wixii dhalasho ahaan laakiin ereygii baa waxa loo adeegsaday warshadihii waa la oran karay waa la qarabeeyay laakiin waa la toleeyay sababta loo doortayna waxaa marka aniga garashadayda caqligaygu isiyay in Soomaaligu tol ay galan karto wixii dadka dhaxay marka warshadihii waa la toleeyay dil la dhaho tolku markaas waa la Soomaaliyeeyay way u taagnay laakiin erey waxa loo adeegsaday aan leedahay kitaab bay uga rogeen midda kale oo xisaabta oo iyadoo aad ka iga yaabiyay wuxuu ahaa aan ka soo qaatay hal mid kaliya la dhaho xarafkan eberka la dhaho iyo tiradan eberka la dhaho iyo tirada hal la dhaho waxay u heleen erey bixinta asal tiro madoorshe marka xisaabta markii eberka la eego markii wax la isku darayo iyo markii wax la kala jarayo lambarka eberka tirada madoorshe waxna kuma daro waxna kama dhimo markii qaybta iyo isku dhufadka la dhahana wuxuu noqonayaa xarafka lambarka ama tirada la dhaho hal waa asal tiro madoorshe oo haddii 100 hal loo qaybiyo waa halkii haddii 100 hal lagu dhufto waa halkii marka waxyaabaha cajiibka ah markaan la yaabo marka wuxuu ahaa waxaan ahaa qof aad xisaabta u jecel technical termkii macnaha qaabka ay u heleen ereygu waaba igara asal tiro madoorshe macnaha waxaa moodaa in macnaha ay ahaayeen dad ehel u ah afka iyo dalka isla markaana baahi weyn u qabay in loo sameeyo qaynuunka haba waxay ahayd ereygii Soomaali lagu heli karo in Soomaali erey bixin loogu sameeyo haddii la waayo in Carabiga laga soo xigto haddii ta saddexaad la waayana in laga soo xigto hooyada luqadaha waxay dhaheen waa luqadii Laatiinka mar afraadka haddii la waayo in Ingiriisi laga soo xigto waxa kale erey bixinta ila yaabadnaa wuxuu ahaa marka la yiraahdo isku dhigmo isku dhihid kala macna ama isku dhigmo kala dhihid kala macna yani qaabka naxwiyanka ay u sameeyeen ama linguistically oo ay u sameeyeen sida dameer iyo dameer inan iyo inan arag waxa la isku dhigmo isku dhihid kala macna wixii isku si dameer hadalta hamza ku jira iyo dameer oo dhaxeeya isku si baa loo dhigayaa markaysa isku sina loo dhimayo isku macnana ma يعني أريد linguistically حتى أما اللغة أهان قابك ودياسية وحمود إن أمد إهل واحد وحاس إنه أفكي عن حنا قاعدين صح وأنا لكداسي ماشي كوسي مركو برالي لها والدنيا ده أنا ترتمي لحين أيا وحا إنه قلنا علي ما عرفتي كلياعي أنت أنا كبحين أريد بحينتا نيكا اللغة يقانا أما linguistica maxaa Soomaali lagu oran jiray ama lagu dhahaabo for example marka leedahay hebel waa linguistic oo kale waxaa laga yaabaa ma faham buu noqon karaa ma aqoonyahan buu noqon karaa ma asaga laftirkiisa erey bixintiisu maxay tahay marka ereyga linguistic macna anigu qof ahaanteeda yani waxaa laga yaabaa qofku kaskiisa iyo garaadkiisu hadla marka ahaanteeda waxaan oran lahaa ereyga markaan kala dhigo waxa weeye luqad iyo yahan lingua waa luqad weeye sax istina waxa weeye yahan markaan isku darsado waa luqad yahan oo ereyga ii soo baxaya Soomaaliga garan waa laga yaabaa qofka afyahan marka la dhaho ade waxaad moodaa afyahan marka taadid waxa igala haboonaan lahaa luqadyahan laakiin labada waxa weeye waa habsi laba siyaabada wax loo yiraahdo luqad marka taa wuxuu noqonayaa af Carabi laakiin afyahankaas aan ku daynaa hadii la waxaan maanta ka hadli doonaa ama ka hadlaynaaba una dabaldegaynaa sanad guuradii afartanaad ee ka soo wareegtay qorista af Soomaaliga guddigii markaa qoray af Soomaaliga waxay ka koobnaayeen 6 xubnood waxaa gudoomiye u ahaa Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal oo Muuse Galaal loo yaqaano waxaa gudoomiye ku-xigeenka ahaa Shire Jaamac Axmed waxaa kaloo kamid ahaa Xuseen Sheekh Axmed oo xoghaynta ahaa Cali Sheekh Axmed Qutubi oo asna xoghaynta farshaxanka ahaa Abuukar Joodadah asna wuxuu ahaa xubin iyo Cabdi Sheekh Cali oo asna ahaa xubin 6daas qof bay ka koobnaayeen in fact 6dooduna runtii waxa ahaayeen 6 nin oo sida Cabdiraxmaan noo sheegay ragii berigii hore ku mashquulsanaa af Soomaaliga iyo qoristiisa Cabdiraxmaan wuxuu soo noqonayaa barnaamijkeeni markii af Soomaaliga la bartay oo la bilaabay in in fact heesihii ama la qoro ama wixii la curanayo la curiyo ama runtii waxaad moodaa inuu ku sameeyay waxa la oran karo laba kacleyn ku sameeyay suugaanta
heeso badan oo la curiyey ay macnaha dhiirigelinayaan in afrika la gaarsiiyo xagga suugaanta oo kale maxaad ka xasuustaa kuwaas oo dhab ahaantii afka waxyaabo fara badan ayaa caawinay afku af jira buu ahaa laakiin waxa weeye aadimadii uu ku socon lahaa ayaa maqnaa qormada la qorayo ama qormada fartaas la qorayo ayaa waxay ahayd maaragtay lugihii uu ku soconayay marka waxyaabaha marka horaantii toddobaatameeyada soo baxay ayaa wuxuu ahaa waxyaabaha hadda maskaxdeeda ku dhaca waxaa ka mid a wixii loola jiray bandhiga fanka iyo suugaanta oo markii acronamka ama erebixinta loo sameynayay loogu magacdiray banfas ayaa wuxuu ahaa tusmooyin dalalka afrikaanka ah maarkaysaa sida maarkaysaa waxaa jiray markaas aan xorriyad qaadan dalkii south africa yacni sida fanaaniintii abwaaniintii maaragtay loo sameeyey isla markaasna loo xiisogeliyey dalalka afrikaanka ahaa maarkaysaa oo maaragtay heeski oo kale mozambique angola muddo dheer baa kasoo wareegtay ayaa kamid ahaa madaxdii africa midab macnaha erey waxyaabahaas oo dhan markii waa la qaadi kara laakiin markan iyagoo qoraala gabayadaa kamid ahaa ayagoo qoran waxaa kamid ahaa oo aada iyo aada ruhaantii aan marnaba la iloobi karin oo kala mid a waxyaabaha uu ku nooladay idaacaddii b b c da waayo galab kastaba markii la gaaro galabnimadii iyo habeenkii 9 fiidnimo labadaba waxaa la dhegaysan jiray idaacadda b b c da waxyaabo fara badan oo dunida ka socday oo aanan ogeyn ama sida wax loogu yaraan aqoon erey bixintooda waxaan ka qaadan jiray aniga personal gaar ahaantayda aniga laakiin siday ila tahay ay ila qabi karaan dad kale kala duwan b b c da marka wuxuu ahaa waktigii aad moodo sidii luqaddu hal mar kaliya ayay dhulka ka wada kacday hadday noqon lahayd sidaad afrika maaragtay aan u xiisa gelinay haddaan dhaqdhaqaaqii xornimadoonka waxaan kaloo garanayaa markaa soo wada gelayay maaragtay dagaaladii 77 ka sokow martidii iyo madadaalada ama national theatreka fanaaniintii soomaaliyeed yacni waxaa mooda afkii in dhan walbaba in uu markay dambe uu yeelso fasaxad iyo qorbo iyo maaragtay matalaad ama matalid kala duwan ee meel kasta ka mid ahayd marka waa arrin iyadidiilo leh oo aan runtii isla aan ku fakara talowba dhici doontaa in markaas dadku si ugu qiiraysna afka loogu baahnaa oo qof walbaaba qofka maarkaysaa warqad baa laysu qorayaa awal fariin baa la isfari jira wuxuu hebel inta u tagto hebel iigu sheeg hadda warqad baaba la qorayaa qofkii baadiyaha ku leeyahay sokortii iyo rijigii baa naga dhammaaday maarkaysaa marka awal ma aanay jirin marka waxa weeye markii uu dadku waxna qori karo waxna akrin karo luqaddu waxa weeye waa furaha waana garasho oo waxa lagu yaqaano years ayaan ku dhawaad iyo ka badan baan malinaya wax yar few years dhowr iyo 20 sano waxba af Soomaaliga laguma soo korin u faa'iideynayo macnaha marka loo fiiriyo in wax tarkiisa 20 sano ugu dambeeyna waa tan la iska bilaawayba maxaad u malaynaysaa inuu intaa ku badbaaday oo survive growgiisa waxyaalaha ka qayb qaatay maxaa kamid ah yani waxa weeye dhabtii waxa weeye marka dunida loogu yeerto oral society ama bulshadii aftaanka macnaha xagga hadalka yani markaysa macnaha waxay eegayaan waa wax la wada tabiyo hadda warqad qoran ii dhigtay haddaad gabay maaragtay aan idaacad ka dhegaysanayso ii dhigto labadooda hanaankayga midna maqalka dhagaysiga uu yahay midna uu yahay akhriska labadaydaas markaysa midna waxa weeye waa mid aad moodo tartiib u soconaya waa akhriska oo kale waa wax aad marka aad siinayso muhiimad maskaxdii iyo garashadii iyo xiskiiba haddii uu dhagahay hasana waxaa kaliya oo aad hawlgelinaysaa maqalka dhagaha in uu ereygu ku qaban karo marka dhab ahaantii waxa weeye 20 sanadood ama iyo dhowrka oo dalku dhacay waxaan ba isleeyahay waxyaabo fara badan ayaa soo kordhay waayo intii uu technology-ga uu casriga ahi uu jiray ilaa wixii 97 ka dambeeyey waxaa soo baxay idaacad kala duwan walow waxyaabo fara badan afaf aanan garanayno hor leh oo bulshada soo kortay ay la soo baxeen oo jiilka da'da yar erey bixinta qaabka electronic iyo xawilaada oo kale markii la eego wax fara badan oo aanan aqoonin baa waxa dadku waxa ereyga lagu sameeyaa wax midna waxa weeye waa wax dunida ka dhaxeeya oo universal ah midna waa wax industrial oo waa baxay dalalka warshadaha leh oo horumaray waxay leeyihiin erey bixintooda gooni ah laakiin waxa universalka laga siman yahay xubnaha aadamaha oo kale hadduu Asia joogo hadduu halkan joogaba mid walba waxay ku salaysan tahay qaabka ay tahay absolutely ma umaleynaysaa marka isla suugaantii waagii horeba
af soomaaliga horumarkaas gaarsiisay intaan la qorin ka hor iyo maqarniyaal ka hor inay weli qeyb ka mid ay suugaantaasi haddana ay badbaadintiisii hadda 20 sano u dambeysay ay gacan ka geysatay suugaantu waa waxa kali ah oo adigu 20kan baad ka hadlaysaa 19kii hore qarni oo hore ee afkeena aanu qornayn hadaad tiraahdo luqadeedu 19 qarni laba qorin waa qoran ma ahayn haddana waa nooshay su'aalo badan baa meesha soo galay how waa ilmahan 20 sano moog yihiin afkeena Soomaaliga haddana kuma ay hadli karaan waayo bay'ad kale ayay yimaadeen luqadda waxa haya waxa weeye waa suugaanta ayaa haysa afkeena waayo waxay ahayd adigu aniga sida la iisoo koriya awowgaa baad wax ku sheegay absolutely afkaan wax isku gaarsiin jirnay yaabka badan waxaa ka mid ah nin Soomaaliya ayaa wuxuu ka tegaya meel wuxuu u socday magaalo kale magaalada waxaa jooga aabihii ninkii u yimid wuxuu ku yiri habla lu socdo wuxuu yiri waxaan ku dhiibayaa maaragtay wuxuu u dhiibay joog muqmada aba oodkaca sodan cado hilibana wuu ku riday marka uu u dhibo wuxuu yiri aabahay markaad u tagto waxaad ku tiraahdaa bishna waa sodan balliguna waa buuxa marka waxa uu ahaa elay sarbeeb ah oo ninka diraya iyo kan loo diraya isaf garanayaan kana hadlaysa waxa uu sido laakiin ninkaanu ma garan ninkii intuu baxay ayuu wiilkii u tagay markaasuu u geeyay alaabti marka odagiyo wiilku wuxuu yiri aabahay wax ku soo sheegay marka wax ku soo sheegay wuxuu ugu yiri bishna waa sodan balliguna waa buuxa odagu wuxuu la jeeday hilbuhuna waa sodan xabo jooguna afku jooga laakiin ninka fariinta wada ma ogay ninku markuu furay uu arkay waxba ka maqan kaa uu gartay wixii soo dhameysay joogii uu dhiibay odaga waxaad ku tiraahdaa uu yiri bishana sodan ma aha balliguna ma buuxo ninku ma garan xataa ilaa inta wuu laabtay odagii markuu tagay maanta wiilka fariin ma soo furay wuxuu ugu yiri saas wuxuu maanta inta meel dhexe ku jirtay ya alaabtu u dhumatay yani arag qaabkii hore Soomaalida hore loo adeegsan jiray waa arrin mucjisa markaas aad iyo aad u baasatay marka taawil waxa ku tusaysaa inuu af Soomaaligu ay suugaantu ay kaalin xoog leh ka ciyaarto aad iyo aad u baasatay adraxna waxaan ku jirnaa waxbarashadii wiigna waxaad sii deysay jimcihii baan u malaynayaa barnaamij aad u qurux badan oo live ku baxay isagana bal nooga waran wax yar intaan ku noqon barnaamijkeena kale barnaamijkii jimcadii waxaan ka sii deynay MTN Somali Live Television ee uu daadihinayay Cabdimaalik Askar waxaa ka soo qayb galay laba macallin oo Daahir Salaad oo isagoo ah macallin South High ah iyo Mahdi Suldaan oo isagoo ah macallin kala Soomaaliga ka dhiga dugsiga Ansalban iyo arday labada dugsiga ka kala socota waxaa kaloo la soo bandhigay dhammaan qalabkii farshaxanka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaana isla markaas meeshii loogu yimid Cabdi Bila Cabdi oo isagoo ahaliyay orodyahan Soomaaliyeed ee isagu u yimid xafladii shalay la qabanayay ee ku aadasanayd Run to Unite 22,000 oo Soomaaliya deeqda loogu aruurinayay run ahaantii waxa weeye wuxuu ahaa television live uga socday SAT ama Somali Satellite iyo Universal Television oo 7 continents ama 7 qaaradoodba lagala socday laakiin danteena waxay ahayd dadka iyo waalidka degan maaragtay Twin Citiska iyo gaarkeeda magaalooyinka mataanaha ah sidii aan ku qiyaasanay iyo qaabka ugu soo baxay sida ilmuhu uga hadlayeen waxay ahayd waxyaabo yididiilada ujeedaduna waxay ahayd afkaan inuu dad leeyahay dadkiisuna dili karaan dadkiisuna ay noolan karaan anagu haddaan Minneapolis Public Schoolna aan nahay waxaa waalidka loo muujiyey in markii ay wax codsadaan haddii ay districtga u gudbiyaan loo samayn karo isla markaana ay waxa soo haray ay tahay wixii inta ka dambeeya waalidka Soomaaliyeed bay u taallaa wixii ay yeeri lahaayeen adiga haddii wax yar hawl ay ku furanta haddaad daba joogtana waad sii kordhin haddaad ka hatana meeshay ku haray marka raaqba waa ku rageeda waxaan leenahay waalidka Soomaaliyeed haddaad ilmihiina afka u rabtaanna waa hawl idin taal haddaad ilmihiina afkooda inaanay bari rabinna waa hawl kale oo idinka gooda laakiin waxaad ogaataan ilmuhu iyo afka iyo dhaqanku iyo diintu iyo inaanay kala harin oo haddii afku tago dhaqanka raacaya dhaqanku hadduu tagana diinta tagaysa ilmuhu aqoonsiga ay leeyihiinna waa afkooda hooyo ku dabaqno barnaamijkeennii farta Soomaaliga sidee markaa u noqonaysaa ama ay kula tahay in ay ku badbaadi karaan ama af Soomaaliga ku badbaadi karo ubadkan intooda badan qurbaha ku dhashaada
waxaa weeye hadda waxaa ubadka hadda jooga ee qurbaha ku dhashay waxaa mas-uulka ah horta mas-uuliyadda koowaad waxaa iskale waalidka mar walba iskale mar kastaba waalidka ayaa iskale ubadku waa ilmo aan waxba kala ogeyn wixii la geliyo unbaa laga goostaa marka waxaa habboon ubadku markay Soomaaliya joogeen yani waxa weeye khasab wuxuu ku ahaa afku halbuu ahaa dhaqanka mid ahaa diinta mid ahayd waxa la iska filayaa mid ahaa qof kasta ayaa waalid ahaa oo marka iyo dhaqan uu ku buraanay hadda ilmuhu waxay u yimaadeen dhaqan ka xoog badan oo ay ku jiraan maalintii oo dhan oo waxay ku jiraan badweyntaasna waxay la jaan qaadayaan ilmaha kale oo asaagooda inta ay yar yihiin marka waalidku hadday ilmaha baraan in guriga looga hadlo afka Soomaaliga oo ilmuhu haddii ay ku hadlaan Ingiriisi ay yiraahdaan may af Soomaali ku hadal oo waalidku ay ka arko inay ka dhabta oo looga dhabeeyo khasab waxaa noqonaysa ilmuhu inay afka bartaan ilmuhu inta ay yar yihiin markay afka bartaan waxaa dhismaya hankooda waxaa dhismaya qabkooda waxaa dhismaya moraalkooda waxaa dhismaya shakhsiyadooda oo waxa weeye meel ay cuskadaan bay leeyihiin markay laakiin dugsiga dhexe gaaraan muraayadii waa jabtay oo ama waxaa galay dhaqankan cusub iyo luqadda uu la jaanqaaday ingiriiska wuxuu rabaa inuu ilmo ingiriisi oo kala noqdo waa in ilmaha loo sheegaa war ninkaas waa ninkan afkiisii weeye laakiin adiga ka afkaaga hooyo waa kan waayo waa inuu waalidka ka arko waagii aan maaragta wadankii joognay faktaan dhalinyarada ahayn af Soomaaliga waxaa kusoo kordhay waagaas aan xasuusnaa ereyo kala duwan runtii oo qaarkood waqtigu watay intaanan u iman dhalinyarada qurbaha anagu berigaas waxaa nagu cusbaa ereyada ay kamid iga qalle oo kale hadda qurbaha waxaad aragta af Soomaaligii maaragtay kusoo kordhay isla ama nimankan jiilkan cusub nagu soo kordhay hadda mararka qaarkood arrintu kaftana kama tagala laakiin run ahaantii sida aan u dhigayo haddii dadka i maqlaya oo Soomaaliyeed ay khalad iga fahmaan anigu waxaan ula jeedaa dhanka wanaagsan waxyaabaha iga yaabiyay waxaa kamid ah waxa weeye waxaan ku oranaynaa waxaas sameeyo ku dhaaro baan oran jirnay ku wallahi baan oran jirnay ilmihii waxa arkaysa say wallahi buu ku leeyahay mushkiladda kaloo iga yaabisay waxa say wallahi ma ku dhaaro wuxuu rabaa inuu yidhahdaa ku wallahi baa inuu yidhahdo marka ma ku wallahi ma karo marka waxaa uga sahlan say iyo wallahi waxay taasu keentay waxaa la dhaho jacburka waxaynu naqaanay dhoodaan baa wuxuu tirin jiray jacburka waxaa loogu talagalaa majaajilo iyo in lagu qoslo ilmaha ku imaanay wuxuu ku yidhi ayeeyo adiga markaad tookin garaynayo ima lisin garaysid adiga markaad tookin garaynayo maxaan ku lisin garaynaya ilmaha afkaas ma keeni karaan haddii labada af la isku daro midka ingiriisiga iyo midka Soomaaliga ahi waad aragta markaan ingiriisi ku hadlayna anaga waaweyn waa qaladna markaan qaladna way nagu qoslayeen waalidku wax ma yaqaan iyaguna markay Soomaaliga khaldaan laakiin qof aan wax khaldamin wax ma saxo waxaase muhiima waxa ugu muhiimsan waxa weeye waalidku Soomaaliyeed ma wuxuu doonayaa ilmihiisu inuu Soomaali noqdo bas wuxuu doonayaa oo ilmihiisu Soomaalinimada hayo ilmuhu afkay ku hadlaan bay yihiin carabiga oo kale ka soo qaad haddii qofkaas quraanka uu yaqaan islaamnimada wuu haynaya waayo hadduu macnaha asaaska qofka waxa qaata marka laakiin inagu carab ma nihin haddana saas ay tahay caqligaygu kama aan soo jeedo in haddii Soomaaliga la waayo dhaxal galayo dhabad baale hadduu inta Soomaaliga uu waayo ilmahaygu uu wixii diinta uu ku haynay uu hayo shaflana ku day waxay dhaantaa markuu Soomaaliga diintii midna ka tago daaqad ka baxo laakiin waxa weeye annagu haddaan af baynu leenahay dhaqan baan leenahay hiddaynu leenahay islaamna weynahay islaamnimada waa asaasnimadeedii ma taagnaan karto haddaan Soomaalinimada aysan taagnayn ka hari mayso haddaan Soomaalinimada dhaqanku iyo Soomaalinimada iyo islaamnimadu saddexdu waa iswadaan marka ilmaha waxaa la rabaa in la geliyo qiimiga ay leedahay aadabul usra oo ah inay yaraanta ay ka bilowdaan waa aad aragtay salaadii waxaa la yidhi 7 jirka markii yidhaha lagu bilaabo waa maxay 15 jir baa wiilka laga rabaa gabadhana 16 jir waa maxay inuu la sii qabsado waxaa la rabaa waxaa la yidhi waqtiga isbedelay war baa la socda Soomaaliya waa ka soo tagnay Ameerikaana nimid marka meeshaan waxa way khayrkeedana waa wadataa sharkeedana waa wadataa waxaana la gudboon marka af iyo dhaqan iyo hidde qaali ayaan leenahay hadda waxaan keenay afkii waan soo qaadnay waa kan waxaan rabnaa generationkeena ama jiilkeenaan joogaay waxaan u gudbin karnaa kuwa anigu aan ilmaha aan dhalay hadda waalidka laftirkooda qurbaha jooga waa ka hadashay ubadkii maxay tahay marka responsible
kule anigu waxaan malay responsibility dheeraada inay saaran tahay maxaa la gudboon marka waalidkii oo laga doonaya macnaha wax fara badan oo hadda culays ugu hayn lahaa haddaad i weydiin lahayd 1995 maanta culays uguma hayaan 95 dagaalka cusbaa qof walba ilmaha markaa imaanaya god iyo dab iyo baa laga soo baxay qof kastaa marka wuxuu ogaa the way out inay tahay waxbarasho hadda 22,000 oo aan joogno 20 sannadood baan qurbaha joognaa waxaan aragnaa ummad fara badan ama caruur fara badan Soomaaliyeed oo afka garanayn sida ay u jahwareersan yihiin oo aysan bulshadii xataa aysan uga imaanayn sababtu wax kala maaha ilmahaas ilmo xun maaha afkaas ayaa fura waa miftaax waliba Soomaali baa tahay waliya hadal yar maaha aabaha baan ku sheegi hadal yar maaha hooyada baan ku sheegi hadal yar maaha ana waxa way ilmuhu hadii ay afka yaqaanin moralkooda qabkooda waxaad aragtay adaf fara badan oo hadda jaamacadaha dhigta oo bachelor qaatay ama masterkii shaqooyin fara badan raadiyay dhibka ka hor yimid wuxuu noqday waxaa jira ma la shaqayn kara bilingual waxaa laga yaabaa in ilmahaas uu galo luqad kale oo Spanish ama German ama Chinese waxaa waalidka habboon in ilmuhu ay afka hadii afka iyo af walba rabshadiisa iyo dhibkiisu wata iyo faa'iideysi khasaar walaay ilmuhu af kale inay bartaan wax dhiba kuma jirto laakiin kii ay lahaayeen ay ka u dhasheen hadaa rabto ilmaha inuu ku anfaco oo uu Soomaali noqdo oo uu Muslim noqdo oo rabto inuu xataa noqdo waa in tabti uu ku noqon lahaad ka shaqeyso oo waa maxay aasaas waxa uu ah ama gurdhig afkiisa iyo hidihiisa iyo dhaqankiisa dalla dhaqankii sidii bulshada ula noolaanayay qaabkii mas'uuliyadda uu baran lahaa intuba waa in waalidka u taalo for example waniyow sababkan deganahay oo kale maba arkaba Soomaali ama ninkan kulaha oo kale maaragtay ma hayaan aniga dhaqaalaha ku kaxeeyo wadanka ku geeyo ama meel Soomaali lagaga hadlayo aan geeyo balka warcudaan waa dhici kartaa cudurdaar ma noqon karo laakiin ma waxa weeye waalidkaas hadduu afka yaqaano meel kale buu ka raadi asagoo qalaya xaashintu qasta ba ta jac ilmuhu ogow macalinka koowaad ugu muhiimsan oo number 1 teacherka ama macalinka koowaad waa waalidka haddii waalidku qalay xaashi qaato oo ilmuhu ka arko waxa waalidku rabo ilmuhu waxay jecel yihiin inay waalidka iska imitation wax la dhaho ama iska yeelyeel adigu waxaad jeceshahay in aabaha iyo kala noqon Soomaali garan hadduu marka waalidku waa laga yaabaa Soomaaliya la joogo marka laakiin marka adigu kula joogo kula hadal markuu ku dhaho come to me daddy inuu dhaho imawde oo ilmuhu marka lagu daba joogo marka ku daba joognaato ilmuhu wuxuu garanaya waxaan muhiim yihiin hadda adigu Ingiriis kula hadasho isaguna wuxuu garanayaa habka nolosha inuu Ingiriis yahay absolutely Ingiriisigana waxay ka baranayaan iskuulka laakiin afka Soomaaligu waa muhiim waalidkeena ku xiran tahay in la dhigo iyo inaan la dhigin waxaa kaloo ka xasuustaa erey suuqyada waxa loo yiraahdo street talk oo kale waxa weeye waxa la hawsha ka waran wax kaloo kida marka wuxuu ku leeyahay I don't know marka waa ereyga ugu sahlan oo Ingiriisiga mar Ingiriisiga Soomaaliga wala adal igala jiqa igu tahay ku leeyahay macnaha erey fara badan oo kale meesha jirana waxaanan u isticmaalin maaragtay waxba la xiriyo waqti xooga afhaanka kuma haboon laakiin muhiimadda sheegi jirta wuxuu yahay ilmihii hadii uu arko in afku muhiim yahay oo guriga uu ka dareemo ilmuhu waa weel wixii la galiyaa laga goostaa wuxuu baahan yahay iskuulka markuu tagayo in iskuulkiisa la tago macallimiintiisa inaad taqaan maamulka inaad taqaan waxa loo dhigay inaad taqaan su'aal inaad weydiiso adoo diyaarsan aad tagto aad ogtahay marka halka timaado waalidka iyo ilmaha cadkiisa meel baa la dhigaya marka haddii aan taano imaan dee intii timaada oo dhaqanka waddankan asaas systemku waa nooca wey anaga waagi hore markii aabuhu hadduu iskuulka aado waxaa la dhihi jiray waxbaa jira maanta maanta soo dheerataa lagu leeyahay laakiin systemka halkana wuxuu yahay inaad mar walba tagto oo aad ka qayb gasho oo aad la socoto ilmahaaga waxay noqonaysaa markaa in ilmahaaga markaa si gooniya macalinka laftirkiisa uga warhayo wuxuu ogaanaya in adiga dareynayso asna uu dareynaya anaa wax kuu sheegaya maanta waa soo dheeratay ereyga ama arkaysa waa qof aad arki jiro magaalada jooga maanta ku yimid waxaan jeclahay in lagu bedelo in la yiraahdo markaad timaado inaad waxa u timid taqaan ay wax diyaarsan ku yihiin ku qoran yihiin oo aad meesha ku fakirin oo marka adigu aad tahay qof wax doonaya waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed ay afkooda dhaqankooda iyo diintooda ay xafidayaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jeclaan lahaa runtii inaan sii wadno wiilka soo socda ama wiilka ku xiga runtii waayo waa barnaamij aad iyo aad xiiso u leh haddii lahayna intaan barnaamijka lamida ku kulmi doono waxaan idin leenahay aniga iyo cabdiraxmaan aadan dhammaanteen maalin wanaagsan awguuriyo sanad guur wanaagsan